بسم الله الرحمن الرحيم وكورس كان امتحانها ku saabsan Linux gaar ahaan Ubuntu 10kiisii shanaad waxaad la socodsiinayaan anigu Ahmed Ibrahim waxaad nagala socoteen website-kayga saabsan.com waxaad si gaar ah igala soo xiriiri kartaan email-kayga ahmedkayd01@gmail.com maanta waxaan casharkan ku baran doonaa sida loo sameeyo loo edit gareeyo loona save gareeyo folder ama file iyadoo la isticmaalo terminalka operating system-keena in soo kicinayna marka hore baan eegno meesha aan ku sugannahay inuu joogno waxaan leenahay marka print working directory waxaan joognaa marka Ahmedkayd marka kood barto waxaan eegnaa sida aad u bedeli karto directory-ga aad joogto ama meesha aad joogto marka ku sugan tahay marka si aad u bedesho waxaad leedahay change directory deedna waxaad leedahay desktop bal desktop ayaan tagaynaa markaan desktop qorayo saad u jeedid waxaan qorayaa capital D bal aan ka dhigo marka koowaad horta small d haddii aan small d ka dhigo saad u jeedid markaan inta yiraahdo qorayaa no such a file or directory ma garanayo taas waxay ku cadeynaysaa inuu Ubuntu yahay case sensitive marka waxaan dib u qoro desktop marka waxaan leeyahay imka cd desktop ayaan joogaa imka desktop ayaan folder ku sameeyay magaciisa aan u bixinayo maxay waxaan leeyahay marka make directory make dir deedna magaciisa waxaan u bixinayaa Ubuntu enter ayaan leeyahay that means wuu samaysmay haddii aan dhaho imika ls ama list waxa meesha yaala itus waad aragtaa folderka maxaa ku qoran Ubuntu folderkan ayaa samaysmay oo ah Ubuntu desktopkeena waxa yaala maxay Ubuntu ayaa yaala hadda folderka waan samaynay isaga gudihiisa ayaynu gelaynaa waxaan leenahay marka cd Ubuntu isaga ayaynu imka gudihiisa ku jirnaa saad u jeedidba isaga ayaynu gudihiisa ku jirnaa marka isaga ayaynu file halkan baynu file ku sameeynaa marka si aynu file u sameeyno waxaan leenahay cat deedna waxaan qoraynaa calaamadaas markaan calaamadaas qorno waxaan leenahay file name-ka ayaynu qoraynaa marka file name-keena waxaan u bixinaynaa hawraar masalan txt baad raacinaysaa deedna waxaad leedahay enter markaad tiraahdo waa inaad qortaa content-gii file-ka marka waxaan qorayaa halkan ka baro aqoon tayo leh markaan intaa qoro waxaan leeyahay control d waan ka noqday marka waxaan sameynayaa bal inuu file-kaasi samaysmay oo save garaysmay waan soo furayaa si aan u soo furo file-kaas waxaan leeyahay nano deedna waxaan leeyahay hawraar oo file name-kiya .txt saad u jeedidba waa ka file-ka uu soo furmay waxaana ku qoran halkan ka baro aqoon tayo leh marka waxaan doonayaa waan edit gareynayaa waxaan doonaa ku qorayaa halkaas waad aragtaa cursor-ku inuu badboodayo waxaan leeyahay ku xidhnow sahal software saad u jeedidba halka hoose waxaa yaala commands lagugu amrayo waxaad samayn kartid calaamada ayar jiida ka sarreysa tusaale ahaan waxay u taagan tahay control calaamadaas waa control baad qabanaysaa marka imika file-ku wuxuu ku jiraa edit mode waxaan doonayna ku qori karnaa halkan marka saynu u save garayno file-ka waxaan leenahay control x oo ka noqo ah exit ah markaan saa uga noqono waxaynu weydiinayaa ma rabtaa inaad save garayso deedna waxaynu kolkaa taabananaa y baynu taabananaa ama ya baynu taabananaa oo yes u taagan marka yes u taagto wuxuu ku odhanayaa file-ka name-ka magaca ma waxbaad ka bedeli hawraar imika 2a baynu halkaa ka dhiganaa markii hore saad u jeedid hawraar waxay u qornayd iyadoo gaagaabsan waxaynu halkaa ka dhiganaa 2a kaleynu ku daranaa deedna waxaynu leenahay enter deedna waxaan leenahay yes bal aanu imika soo kicino file-kii waxaa ku darsamay nano deedna waxaan leenahay hawraar oo waaweyn oo 2a .txt ku xidhnow sahal software waad ujeedaa halkan waxaa kusoo darsan ku xidhnow sahal software aan control x dhaho ka noqdo waxaan leeyahay kaleer waxaan dejinaynaa bal terminalkeenan si aan u ogaano waxaanu sameynaynay in kale inuu bal desktopkeena yaalo folderkeenu sameynay waa kan Ubuntu buu ahaa waanu soo furanaa isaga sidaad u jeedidba laba file baynu sameynay midna waynu edit garaynay oo waa kan oo wuxuu noqday 2a oo hawraar ah midna waa kan oo waxaa ku qoran hawraar oo soo gaagaabsan marka double-click kan siiyo waa kan saad u jeedidba halkan ka baro aqoon tayo leh ku xidhnow sahal software casharkeenu maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo